allahu aclam laakiin waxay leeyihiin taajkani asal ahaan kaniisadu ka soo jeedaa waa sidii faraatiga aan tilmaamayno kale asalkiisa kaniisadu ka yimid baa la yidhaahdaa laakiin biqadi nadar meeshu doonaya ka yimaado sida hadda uu yahay taajka aroosyada loo gelinayo gabdhaha waa xaraan qatci ah ustaadi aroosyada hadda inta badan Soomaalida ay dhigato wadan kasta ay joogtaba wuxuu noqday wax yaani markaad eegtid aad u qaab daran gabadha aroosada ahayd maryo ku dhegana loo soo gelinayaa oo horaadadeedii qaybtan hore banaan tahay dhaxda ay ku dhagan tahay 10 yaardina waa laga daboodaa iyadoo ka aradan tahay marka dadkii aroos gabdhihii aroos ka soo qayb galay hadda Soomaaliya Nairobi kaleeto markii la yiraahdo arooska la dhigayo gabdhaha ka soo qayb galay dhamaantood in yar Ilaahay ka badbaadismo inta badan baraafuuna isku soo shubaan dhar aad ugu dhagdhagan ama jirkooda hoose laga dhax arkayo horaadadooda laga dhax arkayo soo qaataan marka gabadhiina waxay leedahay waa habeenkeygii ama gabdhii kale waxay leeyihiin waa habeenkeeniyo waan caawa inaan tamaashaadnahu dalxiisnay leeyihiin marka arrinkaas ustaadi ka waran taajka sax xaqoo naga soo galay taajka horta waa tan hore u tilmaanay horta ruuxa muslimka ah xaaladihiisa dhan waa muslim xaalado islaamnimada intuu ka baxo gaalnimo iyo dhaqan xumo inuu u baxo loo ogoliyaa ma jirto hadduu faraxsan yahay waa muslim hadduu murugsan yahay waa muslim hadduu culays haysto waa muslim Soomaaliga waa hogaansana Ilaahay u hogaansan waa guryaha marka la dhisayo qaanuun bay shariicadu ugu tala gashay guryaha lagu dhiso magarat arooska lagu aqal galo aadaab baa loogu tala galay gurigu ku barakoobo muxuu ahaayay lagaga ilaaliyo wixii guriga saameyn lahaayo xumaan ku keeni lahaa qaab buu nabigu jiday sallallahu alayhi wasallam aadaab qurux badan yaa leenoo jiday ama dadka iimaanaya ha noqdo arooska ka soo qayb galaya iyo xafladda ama dadka xafladda dhiganaya ha noqdo ama kuwa loo dhigaya arooska galaya ha noqdo kulli shuruuc bay diintu u dejisay aynaan u baahnayn wax kale waxyaalahan marka ergisadee la soo amaahday banaanada laga keenay ee la mooday wax la moodayo fasaadka badanna xambaarsan waxaan dhihi lahaa in laga waantoomaa fiican allahu aclam laakiin waxay leeyihiin taajkani asal ahaan kaniisadu ka soo jeedaa waa sidii faraatiga aan tilmaamayno kale asalkiisa kaniisadu ka yimid baa la yidhaahdaa laakiin biqadi nadar meeshu doonaya ka yimaado sida hadda uu yahay taajka aroosyada loo gelinayo gabdhaha waa xaraan qatci ah Allah musta'an wuxuuna xaraan ku yahay gabadha muslimadda ah inay isqaawiso oo jirkeeda qaawiso ama qayb kamida waa xaraan qatci ah quraanka kariimka Ilaahay tabaaraka wa tacaala meelo badan ayuu ku cadeeyay walaa yabdiina ziinatahunna illa ma dhahara minha dumarku yeysan quruxdooda muujinin ilaa wixii la kari waayo iska muuqda mooyee soo garan jilbaabkii xijaabkii baa la amray gurigeeda markay gabadhu ka baxayso ama munaasabadaha u socoto ama soo adeeganayso waa inay xijaabanto asturan tahay yaa amray rabbiga tabaaraka wa tacaala xaflad marka la isugu imaanayo in gabadhii la soo qaawiyo marada loo soo xidho mar way ku dhagan tahay mar jirkeedii qaybaa muuqda rag baa la hor keenayaa soo garan muxuu ahaayay kana wuxuu wataa taay iyo suud iyo quruxdiisa ka muuqdana quruxdiisa ma la yaani waa linaagtiisa yaani wax weeyaan iyo gabadhu aroosanahay intuu soo qaawiyo rag hor keenay waa the youth waa kii hadda nabiga aan ka hadlaynay sallallahu alayhi wasallam لا يدخل الجنة ديوث جنة ما قالوا نين ديوث أبو نبي صلى الله عليه وسلم ديوث كصومالي ديوث كمعنى يتقانية حديث كمعنى سوى كلا دوية ديوث كصومالي ده يتقانا نين كمحوها هاي نمان كحمان تسكو سماه ديوث ده صومالي ده لكن ديوث كان شرعه وحي يتقانا والذي يرضى لأهله حمان وحي حن نين كرير كي سرالي كأوجا نين كاسة ديوث النبي قال وحي صلى الله عليه وسلم جنة ما قالوا waa dambi weyn wax janno loo gali waa wax sahlan ma marka ninka reerkiisa intuu xaaskiisa soo qaaqaawiyo gabadhu aroosanahay oo marada noocaas u soo xidho ama ku dhagdhagan u soo xidho xijaabkii ka siibo oo jirkeedu qayb qaawo yihiin ragga hor keeno oo xafladda hor keeno ninkaas muxuu Ilaahay ka sugayaa soo caruur barakaysan kama sugahay oo guri barakaysan kama sugahay oo deganaansho ma sugayo iyo xasilooni iyo jacayl ma sugayo tayib Soomaalidu waxay yiraahdaan dabaalxumada dabaasha marka ruuxu bilaabay dabaalxumada hiriqdu ka bilaabay yiraahdaan bimaana bilowga horeba hadaa dabaasha xumayso xagee kula tagi doontaa adiga guri marka horeba waxa lagu bilaabay maxaa laga sugayaa
saas daraadeed baa caruurtii inoo dhalanaysay aad xaalkooda arkaysaa caruurtii inoo dhalanaysay waa la kari laayay labadii intay is aroosato waxaa soo kharash bixisay waxaa soo dambi gashay waxa laga yaabaa usbuuc iyagoo wada joogin ay qoorta isu galaan xadiis baa sugan dhahaya laba ruux oo isjecel oo isnacay ma jiraan ilaa dambi midkood galay ama ay wada galeen baa keenay cuquubaad way waxaan marka sidaas daraadeed waxyaalahaas laga keenay dhaqamada khaldan xishood darrada ah dhaqan xumada akhlaaq xumada ah in laga daayo aroosyada laga daayo in laga daayo ruuxa muslimka noloshiisa ka daayo ku filan alxamdulillaah xaflad baa la dhigay cuntaa la cunay waa la duceeyey gurigii waa loo duceeyey waa laga soo qayb galay bismillaah hay yidhaahdeen gurigooda ha tagaan adkaarta ha akhristaan ha isla aqal galaan maxaa maqan bal waxa maqan la raadinay maxay tahay mara la xidhay maxay soo kordhisay naag dumar la qaawiyey maxay soo kordhisay ma soo kordhin laakiin mushkiladu waxa weeye markay shaydaanku meel xun wax ka tuso oo uu xumaantii kuu qurxiyo oo uu kuu tuso haddaadan saa samayninba waxbaa kaa dhiman ama gabadhiiba la yidhaahdo maya taasoo ma ah naama garoob baa tahay bay leeyihin xataa qaarkood يعني gabadhii hadiiba waxaan aan loo sameeynin soo badhig jirkaaga waxa leeyahay muxuu ahay maxaa gabadha sida maxaa loogu galay meeshan miyaa laga dhintay bilay ma meyd baa yaal yani fuxshigii iyo xumaantii dhaqan xumadii ayaa waxay noqotay wax caadi ah waliba waxaan aad uga xumahay xataa guriyo wadaada ah oo culimo ah ayaa mararka qaarkood dumarkoodii iyo carruurtooda waxaa sameynayaan qolxumadan oo soo gaadhays oo inay raali ugu khaasadii laga yaabo inuusan odaygu ka warhaynin laakiin muxuu ahay dhalinyaradii iyo waxaas la sameynaya marka waa arrin runtii waxa weeye fasaadka socda ummadda ku socda ay qayb ka tahay